Xitaa Priyanka Chopra lagu farxumeyn gaaray Bollywood-ka, balse arrintan oo kale miyay ku qabsatay Hollywood-ka? Fadeexa ku soo baxday filim-sameeyaasha caanka ah ee shirkadda Hollywood-ka Harvey Weinstein ayaa keentay in adduunka oo dhan uu ka dhaco isla markaasna la baaro dhibaatada loo geysto hablaha doonaya inay shaqo ka helaan shirkadaha aflaanta. Wixii intaas ka dambeeyay, gabdho badan oo caan ah ayaa waxay qirteen in filim-sameeyaal, agaasimayaal, maalgeliyayaal iyo atoorayaal caan ah ay shuruud ugu dhigeen inay sariir la wadaagaan si ay shaqo u helaan. Hollywood-ka Mareykanka iyo Bollywood-ka Hindiya ayaan ugu weyn arrintaas, iyadoo aan Bollywood-ka diiradda saarayno isla markaana horay idinla wadaagnay cabashada dhowr shaqsi. Haatan waxaa liiska ku soo biiray mid ka mid ah atariishooyinka ugu weyn Bollywood-ka iyo Hollywood-ka, waana Priyanka Chopra. Madhaw Chopra waa hooyada dhashay Priyanka Chopra, waxayna wareysi siisay warbaahinta Hindiya. Waxaa la weydiiyey haddii gabadheeda Priyanka Chopra lagu xujeeyay inay hawsha sariirta ogolaato si aflaanta dakhli badan ay ugu sameyso. Madhaw ayaa laga soo xigtay 12 sano jir ayay ahayd gabadheedii markii ay ku soo biirtay saaxadda aflaanta. Sidaas daraaddeed, daqiiqad walbana waan la socday xaaladdeeda ilaa muddo 3 sano ka hor. Xitaa goobaha ay aflaanta ku duubeyso ayaan u raaci jiray. Sidaa darteed, raggu waxay dhihi jireen, gabadhayda hooyada miyaa bannaanka fadhisa? Waxaan doonayaa inaan kuu sheego sheeko qaas ah. Priyanka waxay ku jawaabi jirtay, marba haddii sheekadaas laga qarinayo hooyaday, taasi ma ahan sheeko aan maqli karo. Madhaw oo sheekada sii wadatay waxay tiri, mar kale waxaa dhacday naqshadeeyaha labiska jilayaasha filimka ayaa wuxuu sheegay in daaraktarka filimka in loo baahan yahay inay Priyanka Chopra soo xirato dhar gaaban oo khafiif ah. Daaraktarka ayaa ku iri, ii sheeg sababta aad dharka gaaban ugu xidhayso Miss World ee aad kaamirada u soo hor istaajinayso, miyaadan ku qanacsanin quruxdeeda dabiiciga ah? Priyanka waa ay diiday inay filimkaas sameyso. Xaqiiqdii waxay tahay Priyanka 10 film ayay sidaas ku lumisay, waana ay isaga baxi jirtay mashruuc. Waxba kama qusaynin mashruuc marba haddii ay arrinta baashaal faraha la soo gasho. Arrintaana waan u sheegay qof walba, waxaan ku dhahaa, gabadhayda Priyanka, tani ma ahan dhammaadka noloshaada, wax walba noloshaada ayaa kaaga qiimo badan. Madhaw Chopra ayaa la weydiiyey haddii Priyanka ay xaalad noocan oo kale ah ka wajahday tan iyo markii ay ku biirtay Hollywood-ka. Waxay si degdeg ah ugu jawaabtay, ixtiraam badan ayay u muujiyeen Priyanka. Haddii aad tahay qof ku socda waddo toosan, mar walba waad dhibaataynaysaa, laakiin natiijada ku soo baxaysa ayaa ah mid macaan. Gabar walba waxaan kula talinayaa inaysan jirkeeda shaqo ku iibsan, sababtoo ah nolosha ayaa ka wanaagsan wax walba.